sayloonka saddex mar ku soo xay waa la sheegay arintii la yaab lu noqotay saas ay tahay gabadhaasna 2 sano isla soconay waxay iga jeclaatay nin oday oo Mareykanka ka imaaday oo lacag iga raacday aan saas ay tahay lacag in muddo soo shaqeynay lacagta muddo shaqeynay wax badan shaqeynay adoo lacagtina waa waay idina waa guriga waadi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaa qadka noogu jiro Ibrahim Abdimalik oo ah qof xalay ee ku dhacday dhacdo aad u yaab badan xanuun badan aan u baahnayn sheeko badan laakiin qof walba uu dareemi karo qalbiyan. Ibrahim marka hore waa kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aan siisay waxaan jeclaanahay soo dhawow inaad la wadaagtid qisadaada qaabka ay wax u dhaceen dhacdadii xalay sidii u dhacday. Ibrahim Abdimalik oo jooga Muqdisho cadee waa wiilkii xalay ee qisadan ku dhacday. qisadan waxa dareemi karo qof jecel lab soo maray ama qof maxay lahaay saac amal oo soo dhacda xanuunka aan caaw dareemi karo ma fahmin walaal. marka haddaan qisadan ku sheego waxay saan u dhacday gabar isla soconay muddo 2 sano is jeclaanay waxa ku balanay guur ma fahamtay gabadhii marka in muddo isla soconay kalsooni weyn aan naga dhaxaysay jaceyl oo dhab aan naga dhaxeeyay ilaahay haduu ku roon yahay gabadhii ani iyada waa balanay December inaan is guursano gabadhii iyadana arinta guurkeena isku diyaarinaysay ana dhinkay wax walba waa dhameeyay waa qarashkii wax walba cid xitaa u hormariyay waa heshiiskii wax walba waa dhaceen kaliya waxa sugeynay bishaan dhacdeeda inaan is guursano haddana halay anu guriga iska joogo waxa soo wacay ani isma badheenin bayar saaxiibana soo wacay wuxuu dhahay dumaasho miyaha de aroos hebel bay isku diyaarinaysaa xafladeeda waa caaw ani waan nahay xaafada joogay meel wax ka bilaw fahmi waayay waan soo baxay sayloonka lagu qurxinay gabadhi imaaday marka arkay arintii marka waa filiwayso waa yani waa maleysan waa sidii wax u dhacayaan sida maleynay gabadhi marka arkay gudaha ku jirto waxa rabay ani inaan ku dhigo gabadhi qabta la hadlo wax walba aad dhimaysiyo ajalkeena heerku mara aad tusiyo marka ani marka meesha tay gabadhi arkaybo meesha ku mirbeela waan dhacwa sooxe arinta marka ani xitaa ma ogeyn 3 mar meesha ku socdaa leedahay yarkaas saaxiibanaha ii sheegay ma fahantay inta xitaa waxa ii siidar lacagtii iyo wixii dhan waa dhiibay wax walba waa hormariyay gurigayga wixii dhan waa diyaariyay ma aqaan hadana saasa laga galay saaxiibkayga ودريما noloshu waa iska imtixaan. Ibrahim waxa rajeynaa in sabarka ku guuleeyo waana dareemaa dhacdada xanuunka badan oo dameer lehna uu kula dareemaya. Ibrahim kadib maxaa dhacay qisadaas markay dhacday xaaladaas meeshaas ee ka dhacday baraha bulshada lagu wada arkay wiila meeshaas ku sooxay sayloon ku yaalo dabka degmada waa beri gabar uu guursanay gabar jacayl kala dhaxeeya laga guursanay soo marka hadda see wax yihiin gabadha ma dhacay qiyaasi karo xaaladaas waa meesha tagay sayloonka 3 mar ku soo xay waa la sheegay arintii la yaab lu noqotay saas ay tahay gabadhaasna 2 sano isla soconay waxay iga jeclaatay nin oday oo Mareykanka ka imaaday oo lacag iga raacday aan saas ay tahay lacag in muddo soo shaqeynay lacagta muddo shaqeynay wax badan shaqeynay adoo lacagtina waa waay idina waa guriga waa diyaariyay wixii dhan waa habeen meel wax ka bilaw ma aqaano waxa la sheegay 3 mar inaan meesha ku soo 3 mar qofta aad على اساس يقش قيان كوين ما جرت مركه إبراهيم ودريمينا والله هذا حالته هذا ku jir xitaa ma qiyaasi kari ani dhan waxa iska adduunyo sabarka badi waana xanuun wallahi ani markii dhacdadaas aad digo علشان aan daba galay dabcan waa dareemay xanuunkeeda dhibaatada ay leedahay qof lacag uu soo shaqeynay in muddo ah gurigiisa haweystay lacagtii gabadha uu ku guursanayay bixiyay reerkii ay wada heshiyeen haddana in laga wada علشان la maqlo in nin kale uu guursanayo dabcan waa dhacdo xanuun badan qof walba qalbi bin aadan la uu dareemi karo laakiin hablaha Soomaaliyeed
hablaha Soomaaliyeed anoo fursadan ka faa'iideysanayo waxaan kula talinayaa in dhacdo noocan oo kale iska ilaaliyaan waxaan oo kale waa nafsi adduun iyo mid aakhiro waa mid aan qofka ka hareynin Ibrahim waxaan ku rajeynayaa nolol wanaagsan oo farxad badan baaq ugu diray gabdhaha Soomaaliyeed inay qof la balamaan ee waqti liishiyaan kadib markii wixii ay diyaariyaan haddana ee xariirka lacag leh ama ninka lacag leh ay raacaan walaa ana xalay markaa maqlay waan naxay yarkan saaxiibanaha ii sheegay meesha ku sooxay 3 mar meel biray wallahi meel wax ka bilaabo fahmo waa xaalad ku jirta mal qiyaasi karo wallahi jabkan leegeystay inaad ka soo kabsan doon xitaa ilmahan maxay qof kaliya dunida u jeclaa sa ay gashmo إبراهيم ودريمينا وقتي إلى عدة كابحي إبراهيم منو عددي كرتا منو شيء كرتا قرش كابحي guriga lacagti gabadha aad ku doonatay ka baxday waa dareemi kartaa ma oo xaddi gabadha loo maro oo doonto yani dhan walba waa dhiibay haddana intaas dhiib ma ku dhigi kari nin waxa ahay 3 mar suuxay ma fahanti 3 mar suuxay intaas dhiibi kara aad bixiyo waxas ma ku dhigi karo laakiin waxa waa gurigeyga iyo wixii aqalkii ina dhistay aan diyaarsaday